السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبان دي سلام ولا Soomaaliyeed waa mar kale iyo mawduuceeni maanta oo aynu runtii xoog ku saari doono sidaynu u yeelan karnaa ama u sameyn karnaa ganacsi guuleysta. Ganacsi guuleysta marka aynu ka hadlayno waxa uu u baahan yahay inaynu sameeyno qof walba laga helo inuu qofkaasi leeyahay hami iyo aragti sareysa oo marka uu ku qaabilayo inuu noqdo ganacsade guuleysta. ganacsiga guuleysanaya waa inuu leeyahay waa inuu haystaa ganacsade guuleysanaya mar walba oo aynu doonayno inaynu noqono ganacsigeena lagu daydo oo uu noqdo role model ama hogaaminaya ganacsatada kale oo dhan waxa ay nala gudboon inaynu inagu noqono dad u diyaarsan inay soo dhaweeyaan oo ay qaabilaan oo ay hirgeliyaan ganacsi qurux badan oo ku haboon positionka iyo goobta iyo meesha laga dhigayo. marka aynu fikradda ganacsi helno ee aynu fikradihii ganacsi hantino waxa ay nala gudboon inaynu yagleelo oo aynu yeelano waxa la yiraahdo confidence, kalsooni. ganacsigu wuxuu ka dhaqaaqaa waa kalsooni lagu qaabilo oo ganacsi walba wuxuu u baahan yahay in aqoon ahaan la barto waxa laga shaqeynayo iyo sida looga shaqeynayo kalsoonina lagu qaabilo. haday kalsoonidu weyn tahay oo ganacsigaasi uu ganacsi ku taagan yahay kalsoonidaada oo aad ku qanacsan tahay 100% inaad tahay qof ganacsada oo riixi karaya ganacsi waa muhiim inaad leedahay kalsooni aan ka soo noqosho lahayn. hadaynu abuurno kalsooni sidee kalsooni loo abuuri karaa? kalsoonida waxa lagu abuuri karaa kow qofku inuu yaqaano alaabtan uu iibinayo tayadeeda, inuu yaqaano quality ahaan, inuu yaqaano brand ahaan wadanka ay ka soo jeedo, inuu ku qancin karayo qofka macmiilka ee ka adeeganaya ka tukaamaysanaya quality-ga iyo tayada alaabtan uu hayo. waxyaabaha qofka ka caawiya marka inuu kalsooni fara badan ka helo waxa uu ka shaqeynayo waxa qayb ka qaata inuu isaga laftiisu qayb ka isticmaalo adeega ama wax soo saarka uu iib geynayo ee uu hayo. hadii ay suura gasho inaad isticmaasho oo aad tayada ku qanacda adiga naftaadu waxaad awoodaa inaad geliso dhamaan macaamiishaadii alaabta iyo wax soo saarka aad adigu ugu iib geynayso umadaada. hadaynu kalsoonidii dhisno waxa kale oo laynaga doonayaa mar labaad oo qodob labaad oo muhiim ah inaynu dhisno waxa la yiraahdo time management, inaynu ganacsigeena waqti u hurno oo aynu waqti gelino si aynu markaa u manaafacadsano oo midhaha ka soo go'aya ay noqdaan midho inoo cajab geliya. waa inaynu waqti fiican oo tiirar adag ku taagan aynu gelinaa ganacsigeena. mar walba hadii aad ganacsigii shaqaale u dirto oo adigu aad ka dhaxbaxdo waxa hubaala in ganacsigaagaasi uu in badan dumi doono, laakiin markastoo aad ganacsigaaga waqti u hurto oo aad adigu laftaadu time management aad leedahay ganacsigaasi waa guuleysanaya. tiirka saddexaad ee muhiimka waxa weeye commitment, ka go'naanshiyo. ganacsi waloo la bilaabaya waa inuu leeyahay ka go'naanshiyo, meel loo socdaa waa inay jirtaa yool aynu ka leenahay ganacsiga aynu bilownay oo aynaynu ka gaadhno ilaa halka ugu dambaysa. ilaa aynu ka guuleysanayo waa inaynu waqti gelinaa, waa inaynu sabir gelinaa, waa inaynu dulqaad yeelanaa, waa inaynu waayo aragnimo ku xalinaayo ku qaabilaa wixii caqabad naga hor yimaada, isla markaana commitment ka go'naanshiyo. inta badan dadkeena way xiisa qabtaan ama ganacsiyada way xiisa bilaabaan. xiisuhuna wax sii socda ma aha commitment iyo ka go'naanshiyo leh, waa wax mar la qabto kadibna la baabiyo. kam imise ganacsi baynu garanaynaa oo inta wadankeeni laga hirgeliyay ama magaaladeeni laga dhisay bilooyin kadib haddana la waayay. waxa keenay marka hore may ahayn go'aan si niyada qofka uga soo go'ay inuu noqdo qof ganacsada ah oo ganacsigiisu hirgalo oo ummadana u keena wax tayo leh oo qanciya, laakiin waxay ka ahayd qofkaas hebel baa sameeyay aadna samee, hebel baa guuleystay aadna samee, hebel baa tijaabiyay aadna tijaabi. laakiin qofka waa inay marka hore ka tahay kalsooni iyo qanaaco oo ku qabo inuu ganacsado noqon karo, isla markaana uu shaqaysan karo, isla markaana uu iib geyn karo waxa uu hayo. tiirka saddexaad ee commitmentiga waxa ka soo dhaxbaxa inaad isbarataan oo mar walba lagugu barta ganacsigaaga dhexdiisii oo macmiilkii markuu yimid hadii uu mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad soo noqdo oo ganacsiga hadana ka dhaxelo waayo waad isweji barateen. dabcan waxaad ahayd qofkii wax ka iibiyay mar walba uu kugu soo noqon doona. haddaba macmiilku muxuu u baahan yahay markastoo inuu ganacsi dhisno ganacsiga iyo macmiilkii ma kala maarmaya oo adigu waxaad u baahan tahay ganacsigaagu inuu noqdo mid sii jira oo macaamiil badan kasbada oo in fara badan lagugu xidhnaado oo qofka markuu yimaada
uu awoodo inuu dad kale kugu soo xidhi karo. Si ay taasi u dhacdo, maxaa laga doonayaa qofka ganacsadaha ee ganacsigiisa raba inuu xoojiyo? waxaa laynaga rabaa oo qofka ganacsadaha laga doonaya waxa weeye inuu yahay qof dhoola cadayn badan, smiling. ganacsigaaga ku qurxi, wax kastoo aad qabanayso dhex joogto ku qurxi ganacsigaaga dhoola cadayn fara badan. waayo dhoola cadayntu waxay tilmaamaysaa inaad laab furan tahay, inaad qalbi xaaran tahay, inaad u diyaarsan tahay inuu qofkani kula saaxiibo oo uu ganacsigaaga kugula saaxiibo. smiling aynu ku qurxino markaa ganacsigeena. qodobka labaad ee isna muhiimka u ah qofka macmiilkaana kasbada ee soo jiita waxa weeye hadalka wanaagsan. hadalka wanaagsan waa sadaqo. sidaasoo kale haddii aad ganacsado tahay, ganacsina aad abaabulayso, meheradna aad dhex joogto, waxaa kula gudboon inaad adeegsato ereyga uu kasii fiican yahay, ereyga uu kasii muhiimsan yahay, si uu qofkaas aad qalbigiisii u kasbato. waxaa kaloo iyadna muhiima oo qofka ganacsadaha laga doonaya si uu macmiilkiisii u cajabgeliyo inaad u diyaariso goobo ku habboon inaad fadhiisiiso ama aad kusoo dhaweyso macmiilkaaga. macmiilkaagu markasta uu helo soo dhaweyn diiran oo qalbi furan oo dhoola cadayn ay ku jirto, oo weliba biyo qabow ama sharaab qabow amaba meel ku habboon inuu fadhiisto aad u diyaariso, waxaad sii kasbanaysaa ama aad sii hurinaysaa yididiilada ah inuu kaasii adeegto oo adeeg fiican uu kaala sii baxo. sidoo kale waxyaabaha muhiimka ee qofka macmiilka lagu kasbadaa waxa weeye inaad mar walba diyaar adigu u tahay inaadan no face iska ilaaliso. no face wejigaaga inaanay ku qornayn, no, laakiin ay ku qoran tahay welcome. meheradaadu ay qurux badan tahay, wejigaaguna uu qurux badan yahay. waxaa kaloo muhiim oo qayb ka noqda inuu ganacsigu guuleysto labisyo u gaara. tusaale ahaan oo kale haddii aad ganacsi qurux badan oo professional aad leedahay, inuu ganacsigaagu leeyahay loogooyin u gaara, inuu leeyahay labis u gaara, inuu leeyahay dad akhyaara oo runtii mar walba ka shaqaysiin kara ama gaadhsiin kara cidda u baahnay. waxaa kaloo iyadna muhiima oo runtii meesha ku jirta oo lagama maarmaan u ah ganacsi aas-aasan inuu guuleysto, in mar walba lagu fadhiisiiyo oo qualitygii iyo briceka ay isleeyihiin. mar walba qualityga alaabta iyo bricekuna inay isleeyihiin. haddaba maxaa inala gudboon maadaama aynu badideenu nahay ganacsato ama dad ganacsiga u heelan oo ummadda Soomaaliyeed marka kala badh la yidhaahdo waa dad ganacsato ah, waxay doonaan baa ka shaqeeyaan. laakiin waxaad moodaa dadkeena inay ku kaliftay oo kaliya duruuftu inuu qofkani noqdo qof ganacsada oo nolol maalmeedkiisii ka raadiya ganacsi. duruuf baa inoo geysay inaga inta badan, laakiin dadyowga caalamka iyaga waxaa u geeya professionalismkooda ama waayo aragnimadooda ama khibradooda ama wax ay hobbigooda oo ay jecel yihiin darteed bay u qabtaan oo ay u galaan. laakiin alxamdulillah waxaad arkaysaa dad Soomaaliyeed oo waqtiyadan dambe soo kordhaya, ganacsiyo Soomaaliyeed oo sanadadan dambe maasha Allah kor u kacaya, oo dadkii ka shaqaysiinaya ay noqdeen dad professional, soo dhaweyn fiican, smiling fara badan, dhoola cadayn fara badan, isla markaana ku qaabila macaamiishooda weji furnaan iyo laab xaadnaan. taasina waa ta keenta inuu ganacsigu guuleysto. waxaa inoo ballana si uu ganacsigeena u guuleysto inaynu leenahay waxa la yidhaahdo confidence, kalsooni fara badan aynu ku qabno ganacsiga aynu ka shaqaynayno. sidoo kale inaynu haysano waxa la yidhaahdo time management oo waqti fiican aynu gashano ganacsigeena. sidoo kale inaynu leenahay waxa la yidhaahdo commitment, ka go'naanshiyo joogtayn. dabcan meheradaada qaabkeeda iyo weliba designka ay u samaysan tahay haddii aad ka bedeli karto 6 biloodba mar designka wax ka bedel. waayo taasina waxay kaa caawinaysaa inuu macmiilkaagu dareemo inay meheradaadii professional tahay, inay dhaqdhaqaaq fiican samaynayso, in dabcan ay maalinta ka dambayso sii qurux badnaanayso oo ay soo dhaweynayso. shelfisyadooda la kala bedelo dabcan iyo marka aad baad mahadsantihiin. ganacsi qurux badan baa inoo ballana iyo ganacsi guuleysta. thank you.